waxaynu ka baryaynaa inuu ina siiyo raxmad waasac oo ballaaran oo qof reer walba uu ku nagaado gurigeeda. ilaahow raxmad iyo roob iyo nabadgelyaanu kaa barinay. ilaahow nabadgelyaanu kaa barinay. ilaahayow inaad tusto dadkani waa dad wada hele waxay isu yihiin baanu kaa barinay. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu beerkeenna burcad isu mariyo. ilaahayow roobka ilaahow xoogaa kaliishu way adkaatee noo soo dedeji. ilaahayow noo soo dedeji. ilaahayow mid kadabaaya muska waraabsiya aan diilin wax qaadaya dalab toonna lahayn baanu kaa barinay. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء روبك يا نبدقليا يا أمنك أن كنت عينيك بعدي waxaan doonayaa sidoo mar saabku sheegay inaan ka war daarano shacbi weynihii gobolka Ceerigaabo gobolka Sanaag ilaa maanta bacadka noo taagnaa inaanu haleeli kari weynay meel aanu kala hadalno dadka oo badnaa muhiim waxa noo ahaa bidqafka dadka oo aan cid qofna qof ku dhicin marka waxaanu door badnay meel kooban oo dadka aanay isriixriixayn la kantarooli karo inay noqoto. shacbi weynaha reer Ceerigaabo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhawayntooda. waxaan uga mahadnaqaynaa sida isugu duuban yihiin ay nabadgelyada u ilaashadeen. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labada gudoomiye ee gudoomiyaha degmada Ceerigaabo iyo barasaabka gobolka oo runtii aanu ka wada shaqaynaynay gobolkani inuu nabad noqdo oo aan wax ka dhicin aniga iyo rag kale oo ka mid yahay Garaad Cabdillaahi Garaad Saleebaan iyo iyagu maalintay adkaato khadkaanu soo wada gelaynay. Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaamna wuxuu ahaa mustambeedka nabadda nagala shaqaynaya. aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa dhammaantood. aniga Ismaaciil Xaaji Nuur waa la yaqaanaa muddo 40 sanadood saaxiib baanu ahayn. waxaan idiin sheegayaa maalin kastoo doorasho timaado anigu ninka dhinaciisa taagnaa baan ahaa. waxaan ku dooranayay wax kale ma ahayne waxaan ogaa maalintay adkaato nin gobolkiisa isku hayn kara dulqaad leh oday leh. barasaabka oo nin yarina wuxuu muujiyay dulqaad iyo odatinimo muujiyay. labadaba waxaan leenahay idinku maalay guddiga nabadgelyada ee u soo horeeyaan taliyaasha bilayska iyo kuwa ciidanka qaranka iyo asluubta iyo maayar ku-xigeenada iyo barasaab ku-xigeenada ammaan gaar iyo sharaf ku leeyihiin. maanta haddaynu laascaanood ka dhacday ka nabad gallay oo aanayna khusayn waxyeelihii yaryara ee dhacayna gacantaynu marinaynaa. aniga hadda safarkaygani siyaasad ma ahayn in dadka la mideeyo oo la isu celceliyo iga ahayd. waxaan doonayaa inaan idiin sheego madax dhaqameedkayagu gobol baanu fidinaynaa degdega. maamulka dawladduna waa nala qabaa waa nagala shaqaynayaa. mucaarad iyo muxaafadna waa nagala shaqaynayaa. cid walba gobolkan amnigiisa iyo noloshiisa iyo wada noolaanshihiisa ay ku fekeraysaa. waxaan ka bilaabaynaa tii Ceelafweyn waxaan ku xijinaynaa tii Ceeriyaan magaalooyinkii lagu kala maqnaa waxaan idiin tii Durdur baan ku xijinaynaa. waxaanu ku xijinaynaa tii ka dhacday xeebta iyo Xaysimo. waxaanu ku xijinaynaa tii Rubay ka dhacday. waxaanu ka shida wixii ka dhacay waxaan ku xijinaynaa wixii goof iyo ka dhacay boodacade ama boorley iyo aageeda ka dhacay. mid walba waxaanu doonaynaa in gacanta la mariyo. waxaanu doonaynaa in laga xisaabtamo ama goof ha lagu dilo ama ha lagu dilo meesha la yaado aasas ha lagu dilo ama boorley ha lagu dilo. oo aniga beeshaydu ugu horeyso waxa weeyaan wax hadirahoo dadkii dhintay laga kacaya maaha waa laga xisaabtamayaa. wixii Ceerigaabo ku dhintay baa lagu xisaabtamayaa ama bareer ha u dhinteen ama khadda ha u dhinteen. wixii dawladdu geysatay dawladdaynu si gaar ah uga wada doonaynaa. wixii inaga dhexdeena ka dhacayna inagoo gacmaha ku dhammaynaynaa. dadkan in dad kala maarmi kala maaha. waa gobolkii u horeeyey ee 93gii gobasha midaysan inuu dhignay 4 beelood ku heshiinay. heshiiskeenii baynu dhowraynaa.